episode-kan waxaan rabaa inaan kala hadlo post production. Post production waxa weeyaan waxyaabaha aad qaban lahayd amba aad qabanayso marka duubitaanka aad dhamaystirto. anigu marka hore waxaan ku bilaabay editing and then markaasaan u gudbay production inaan wax duubo then markaasaan u gudbay in aan wax balaan garay stepskaas amba departmentyada aan soo wada marayna waa departmentyo aad u wada kala duwan midna mid kala shuqul lama laha midna mid kala xiriir badan lama laha waxa weeyaan qofba gaarkiiba u shaqaystaa qofba gaarkiiba wax u wataa stage-gan la yiraahdo post production waxa weeyaan stage-yada ugu u baahan maskaxda u badan inaad geliso maadaama tahay qofkii qorsheeyay duubay imikana edit garaynaya way kula fududaanaysaa in aad wixii edit garayso because already waad haysataa maskaxiyan waad ka haysataa maniyadood ka haysataa sidaad wax u samayn lahayd raw footage assembly inaad waxaagii horta organize garayso waxaa jira videoyo badan oo aad duubtay oo aanad u baahnayn oo kale kuwaasoo kale waad iska dhex saaraysaa kuwaad qaadanayso inaad wixii dib u wada daawataa ood ogaataa maxaan qaadanayaa maxaa ii muhiima maxaan ku darsadaa xisaabta maxaana ku darsan codkaa ka xumaaday kan maxaybaa ka xumaaday marka waa inaad ogaataa mid kasta waa inaad gaar u wada daawataa marka koobaad so markaad gaar u daawato you have to organize it iyo assembly organize garee and then meel ku wada assemble garee dhammaantood halkaa kugu wada jiraan so waa inaad furtaa markaan programmadooda wax ku edit garaynaysay halkanna waxaa ku yaala programmo aad u badan oo wax lagu wada edit garayo anigu inta badan waxaan ku edit garaya Premiere Pro laakiin waan soo maray inaan dhammaantood wax ku wada edit garayo haddaba markaad daawato aan videoyada soo edit garaysay waxa aad u muhiim ah horta intaanad editing aanad sii wadin horta inaad eegto inaad wixii aad u baahnayd oo dhan inaad haysato because marmarka qaarkood waxaa dhici karta inaad waxyaaba ilowdo haddaad waxyaabaha ilowdana waxaa fiican inaad ku noqoto oo aad dib amba reshooting baa la dhahdaa inaad dib ugu noqoto locationkii aad dib wax yar shoot garayso amba dib wax soo duubto laakiin hadday wax kasta ay diyaar ku yihiin you need to start editing. Editing inta badan inta waxa steps la qaataa jira marka wax la edit garaynayo stepskaasi guud ma dul mari doonaa waxaan waa wax ay ka siman yihiin dhammaan dadka wax edit garayo dhan waxa weyn marka koobaad inaad horta cutting footage inaad horta cut garayso videogaagii waxyaabada u baahantay inaad qaadato waxyaabada u baahantay inaad ka dayso taasi waa number 1 2 color grading and color correction waxaan rabaa inaan aad uga hadlo barnaamijyada soo socda laakiin si guud ma dul maraya color correction waxa weeyaan colorkii inaad horta halkiisa ku soo celiso shaarkan cadan maanta xidhanahay hadduu maanta yar blue yahay oo videogan duubay day iga yar dhex galay ama meel daruuro la ku duubay ama meel cadceed la ku duubay hurud ay tahay horta waa inaan cadaankiisa ku soo celiyo that's the first step cadaankiisa markaan ku soo celiyo casaan red to red intaas oo markaan dhamaystiro then markaasaan u gudbayaa color grading inaan dadana colorkii hagaajiyo waxaan doonayaa qofka midabkiisa inaan yar qurxiyo inaan cadeeyo inaan wax ka yar bedelo inaan shadow yar sameeyo waxaas oo dhan waa color grading laakiin color correction waxa weeyaan horta colorkii inaan ku soo celiyo videoga colorkii saxda ahaa ee uu lahaa sound effect baa ku soo xiga ama sound design waxa weeyaan inaad horta codkii nadiifiso haddaan maanta audioga aan isticmaalayo uu yahay interviewga rabo qofka in aan background noise laga yar maqlayo amba inta badan wax yaroo sucaac yaroo kale ku jiraan wayna ku dadaalo horta inaan nadiifiyo codkaas dadku waxaa la yidhahdaa inta badan sound xun looma dul qaadan karo laakiin video xun waa loo dul qaadan karaa hadduu soundku kaa xun yahay uu videogu laakiin quality-gu u dambeeyahay cidi daawan mayso laakiin haddii soundkaagu fiican yahay laakiin quality-ga videogaagu aanu fiicnayn still dadku way daawanayaan because at least way maqlayaan waxaad ku hadlaysan waxa qofkii ku hadli lahaayeen waxaa ku soo xiga graphics amba titles inaad u isticmaasho aan barnaamijka amba documentaryga soo duubisay halkan markuu magacaygu ku soo qormo amba halkan markuu magacaygu ku soo qormo amba halkan markuu magacaygu soo amba halkan markuu ku soo qormo amba halkan markuu hadba halkaad ku qorto magacaaga amba graphicskaaga waa inuu deetana title wanaagsan u isticmaasho titladaasi way ka buuxaan waa free inta badan free stock weeyaan barnaamijka programka isticmaalaysa ku xiran tahay wixii u baahan in cod la dul saaro marka qaarkood waxaa jiri karta in aad duubayso waxyaabaha la yiraahdo participatory or documentary oo noocyada documentaryga amba observational documentary oo kale ama narration oo kale intaaba markaad duubayso waxaa muhiim ah in haddaad rabto inaad codkii u dhigato halka dambe aad tiraahdo halka dambe aan ka duubay codkii
inaad hadhow adoo daawanayo edit garaynayo laptopkaaga dul fadhiya inaad haysato good microphone ama good microphone setup hadeetana aad ku duuduubto codkaad doonaysa. post productionka waxa kaloo soo hoos galaya distribution waxa la yiraahdo. distribution waa baahin, halkeen ku baahinaya markan videoga aan dhamaystiran edit gareeyan hagaajiyo halkeen ku baahinaya. So meelo lagu baahiyo way jiraan maanta social media ha kamida YouTube channelladii, TV-yadii, meel kasta maanta TikTok, anywhere baad dadana distribution ku sameyn kartaa, soo bandhigi kartaa, aad ku baahin kartaa videogaagi. markaad wax edit gareynaysa amba dadka inta badan waxa edit gareeyaan waqti badan bay qaataan inay computerku dul fadhiyaan, waqti badan bay qaataan inay wax edit gareeyaan oo halka fadhiyaan. inta badan waxay ku qaadanaysaa 5 saacadood, 6 saacadood, 7 saacadood ay ku qaadanaysaa. marka key point waxa weeyaan waxa muhiim inaad ka kacdo markaad duubto, markaad soo dhameystirto wax edit gareynayso dul fadhido 4 saacadood hadda dul fadhido 5 saacadood intay doonto ha noqoto inaad break ka qaadato markaas waa muhiim. because khaladkaad samaysay markaa koobaad kuma noqon kartid ma arkaysid ilaa aad ka yara kacdo ama saacad ama wax soo yar cunto ama aad ka yara baxdo kale ogaan maysid. So waxa muhiim ah wax edit garee ku dadaal inuu yahay marka hore intaanad wax edit gareyn aad ku bilowdo wax qaladaad ka ilaaliso, laakiin markaad dhamaystirto waa inaad ka yara kacdaa deetan aad ku soo noqotaa dib u daawo waxaaga. feedback ayaa number 2 ah. feedback waxa weeyaan inaad u dirto dadkii amba u shaqeynayso oo kale amba qofkii kula shaqeynayay amba qofkii aad interviewga ku duubaysan amba qofkii documentary ku duubaysan amba asxaabtaada ha noqoto inaad u dirto videogii aad tiraahdo feedback iga soo siiyo videogan. oo dad baa jira daawanayo ka helayo oranayo waa wax wanaagsan, dad baa jira wax soo yar qabanayo oranayo halka wax ka yara bedel. qof baa xitaa title-ka magacaaga inta badan waxbaad ka yara tagi kartaa inta badan deetana qofkii baa soo qabanayo ku oranayo waxa wax ka bedel aanad adigu arkayn. marka that's why ay muhiim u tahay inaad horta feedback ka soo qaadato dadka oo dadka ugu yar dirdato si ay kula arkaan waxa duubtay. key point-ka ugu dambeeya waxa weeyaan inaad markaas ku dadaasho quality over quantity. waxaad soo saarayso in quality yeesho instead of quantity. haddaad tiraa quantity baan ka fikiraya, that means waxyaabo badan oo samayn doonta qaladaad badan baa ka iman doona. laakiin haddaad quality ka fikirayso 8 bilood marba dadna video soo dhigaysa videogaasina waa video quality ayuu yeelan doona. marka markasta ku dadaal markaad especially markaad wax edit gareynayso in aad hadday 4K ahayd waxa duubay ahad waxa la soo duubay aad adigu edit gareynayso inaad 4K giisa ku dayso. haddii uu 1080p ahaa in 1080 aad dadna ku dayso dadna hadhow waxa ku wanaagsanaan quality-ga ku soo dhigay YouTube-ka ama meelaha aad ku soo dhigay ayadana fiicnaanay. So ku dadaal markasta in quality-gu wanaagsanaado.